kulankan ka furmay magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama ayaa ujeedkiisu ahaa mid inta badan ay ka soo qaybgalayeen wadamada ku bahoobay ururka Islaamka taasoo looga hadlayay arrimaha Islaamka gaar ahaan sidii gacan loogu geysan lahaa wadamada dhibaataysan ee dalalka Islaamka. kulanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay wafdi oo hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayadoo la filayo caawa inuu khudbadiisa ku aadan ee kulanka ururka Islaamka oo ka jeediyo magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labada casho la soo dhaafay ku sugnaa magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama ayaa ka qayb galay shir degdeg ah oo isugu yeeray boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan bin Abdul Aziz. shirkan ay isugu yimaadeen 22 dal ee ka kooban Jaamacadda Carabta waxaa lagu lafaguray amuurihii u dambeeyay ee taabanayay dalalka bahwadaagta ku ah ururka Jaamacadda Carabta. shirkan intuu socdayna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kulan doceedyo la qaatay ninka haatan hogaamiya maamulka ku meel gaarka ah ee Suudaan sareeyo guud Cabdulfataax al-Burhaan. wuxuu sidoo kale madaxweynaha kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Qatar Sheekh Abdullah bin Nasir bin Khalifa Al Thani. ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna wuxuu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan iyo sidoo kale Soomaaliya iyo Qatar. madaxweynuhu sidoo kale maanta wuxuu kulamo la qaadan doonaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay shirkii xalay iyo kan caawa la qaban doono oo ururka iskaashiga Islaamka isugu imanayaan. ayadoo caawa ay ku beegan tahay 27-ka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ayagu soo cimraystay waxa weydiiyay dareenkooda ku aadan muhiimadda ay leedahay maalintan barakeysan ee 27-ka bisha Ramadaan. It's your first time or? This is my first time actually on the Mother. I don't know if I'm again, inshallah, next week I come. لواتين تدوبنا بشأننا إن شاء الله ولا لا مسلمين تنا ونسوي دعائنا أنا قوم نجرا إن شاء الله إنه إلهي وافجيه وعن أكبريا إن شاء الله إنه هل كان أقول كلنا بإذن الله الكريم حد كرس السعودة وعبرة الصفر إن شاء الله. labadii maalin ee ugu dambeeyay magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama waxaa ka socday shirka ururada Islaamka waxaana la filayaa in maalinta biritaan oo sabtiga la soo gabagabeeyo sidoo kale madaba dhowr ah oo ururada Islaamka ee midaysan laga soo saaro shirka ka socda magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama. Cabdirashiid Maxamed Abdirashkiin Farsal TV Makka al-Mukarrama Saudi Arabia.